sida ay baahisay Aku Weather hay'adda caalamiga ee la socodka dhanka saadaasha hawada waxa ay sheegtay in Soomaaliya duufaano xoog leh iyo roobab badani ay ku soo wajahan yihiin. Hay'adda ayaa xustay in duufaanada Soomaaliya kaga imaan doonaan jihada dhanka badweynta Hindiya waa sida hay'addu ay sheegtay. Dhulalka xeebaha ay ku tirsan badweynta Hindiya ayaana la tilmaamayaa in toddobaadyadana soo aadan duufaano iyo sidoo kale roobab awood leh ay ka di'i doonaan sida khubaradu hay'addan ay xuseen. Khubarada ayaa sidoo kalena soo hadal qaaday inay macquul tahay in jihada waqooyi ee dalka ilaa bariga dalka ay ka di'i doonaan dabaylo wata roobab xoog leh. hay'adda caalamiga ee la socodka dhanka saadaasha hawada ayaa sheegtay in xeebaha Puntland ay roob xoog badani ay ka di'i doonaan 5 ilaa 6 ee bishan aan ku guda jirno ee December waa sida ay sheegeen. Dadka ayaana loogu baaqay inay feejignaan dheeriya muujiyaan. magaca duufaantan ayaa lagu sheegay Bawana iyadoo la xusay in dalal ku yaala qaaradda Afrika ee ka bilaaban doonaan si gaar ah waxa la xusay dalka Madagascar kadibna waxa la sheegay in xeebaha koonfureed ilaa iyo sidoo kale bariga Soomaaliya ay ku soo wajahan tahay duufaantu. dalalka Seychelles, Madagascar, Sri Lanka iyo sidoo kalena gobolka Kerala la yiraahdo ee dalka Hindiya oo dhammaan ku tirsan badweynta Hindiya ayaana la sheegay in toddobaadkan iyo kan soo aadanba duufaantu ay ku soo wajahan tahay oo ay saameyn yeelan karayso. deegaano hoos yimaada gobolka Mudug gaar ahaan Ceelhuur iyo sidoo kalena Cashuura ayaa laga baqdin qabaa in roobab badani ay ka da'aan kuwaas oo dhulgo sameyn kara. deegaano dhowr oo dhaca koonfurta dalka waxa muddooyinkii dambe ka da'ayay markii aan u eegno roobab xoog leh kuwaas oo saameyn taban ku yeeshay dadka ku nool deegaanada roobabku ay ka curteen. si aad kaga hesho wararkii ugu dambeeyay adduunka media fadlan rukumo channelkan ay subscribe leh asxaabtana la wadaag. mahadsanid.